halkan waxaan ka soo jeedinayaa kolley TV-ga waad aragteeno dhaliilo fara badan iyo cay fara badan baa ka socota oo ku waajahan gudoomiyaha xisbiga iyo guud ahaan wadaniba waxaan leeyahay waxqabad fara badan oo lagu celceliyaa waxaan ka garaadayaa inuu jiro oo uu dhab yahay waxqabad dhabana la qabtay waxaase meesha barbar socota intaa la qabtay shajeebilaabkeed oo qalada oo la galay baa barbar socota mudane madaxweyne horumarka waxa ay kaaga sheegaan TV-ga horta waxaan idin sheegayaa halkan bay faadmascid ka lahayd hoggaanka yaa haya horta hoggaanka waan idin sheegayaa in madaxtooyaa jirta ee madaxweyne ma jiro waxaa la yidhaahdaa madaxtooyadii waxaasa ka soo baxay haddaba madaxtooyadii waxaa ka soo baxay maaha warkii madaxweynaha makii marwada makii xirsiba makii askarta lama yaqaano waxaan madaxweynaha ku bishaaraynayaa waxa ay nagu dhacday bini'aadanka wixii qadarku keeno laysuma canaato madaxweynaheenu geesin buu lahaa karti buu lahaa qadarin buu lahaa wax aanu maanta yeeli karayn oo uu hore u soo yela ayaa u bannaanay madaxweynuhu waxaa dhigii 80 ugu tanaasula dhahay maanta madaxweynaha waxa u bannaanay inuu tanaasul geesinima qaato nasashana uu isku sameeyo isagu horta taa intaasaan ku leelaagsan u malayn maayo axmed kiibooba sheego hore ayaa saa yeeli karay maanta inaanu yeeli karin taa waxaan intaa idinku darayaa waxaan aad iyo aad idinku gubaabinayaa horumarka la sheego waxaa barbar socda marna baan idinku celinayaa inan ka mida shaqaalaha dowladda ayaa waxaa la yidhi waxaan ku hooyatay oo aad isla taagtay inan baa la yidhi shaqadii waa laga heli inan shaqaalaha dowladda ka mid ahaa oo wasaaradaha ka shaqayn jiray ayaa la yidhi dowladdaad xamartay shaqadii waa laga heli waxaa jiray labadii inan ee intay jaamacad ka soo wadaxeen mid ka mid yihiin adeerkii wasiiro wiilkii kaloo bilowba adeerkaa u tag sidii tuuniisii hargeysa ku dhintay waa qiso dhacday oo dhaba haddii laga murmana sida waan uga sheekayn doonaa weliba waxaan idiin sheegayaa masiibooyinka dhacay way ka weyn tahay wax maanta la soo koobi karo waxa aan sheegayaa geela ayaa waxa loogu mahmaahaa marka la waraabinayo in garbooday in gobaaday gaari dumar iyo uu garbood hore waa la galabsaday qaranku maanta wuxuu ku sugan yahay in gaari dumar iyo garbood yar weynugu horo waana galabsi inugu dhacay waxaase leeyahay maxamed kaahin oo saaxiibkay ahaa ayaan habeen dhoweyto waxa qabadka isagoo aad uga sheekaynaya oo aniga madaxdayda hoggaankaygii ahaa maase uu tiriye allah u naxariistay maxamed xaashi dhamac ayaa waxay ahayd sanaf baatii kaahinow soo isku dhig yahay maxamed kaahinow sunnadeeda adaa u xidhan saa hadduu jabo waxaan kugu bogaadinayaa maasadii